طبعا wanaagsan halkaan naga daawanaysaa Soomaalida maanta barnaamijkeena si wadajir waxa uu soo jeedinayo Zakariya Maxamed Cali Zakariya Qaran iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Maxamed. sidoo kale waxaan kala gorofeynayna insha Allah doorashadii dhawaan ka dhacday maalinta Khamiisii galmudug sida u dhacday iyo doorashada sida ay iyo xisbiyada ka qayb galay waa doorasho isku sidkan yahay marka cadar barnaamijka aan falaqeynayna insha Allah waxaa falaqeynta iga qayb galay sida hore inuu sheegay Zakariya Qaran Zakariya sida ka warqabno doorasho ayaa galmudug ka dhacday si warabta ah laakiin waxaan idana war bixisaa sida guud qaabka doorashada u dhacday iyo xisbiyadii go'aamiyada doorashada ka dhacday degmooyinka galmudug. Maxamed Xuseen Maxamed waa mahadsan tahay mar kale daawadayaasha kanaalkeena ku xiran aad u salaama. dabcan galmudug waxaa ka dhacday doorasho si weyn bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee isha ugu hayeen. dabcan deegaano kala duwan ayaa doorashada lagu qabtay gaar ahaan 11 degmo oo ka tirsan deegaanada maamulka galmudug. doorashada dabcan tii hogaamiyaha maaha dabcan tii golaha wakiilada maamulka galmudug iyo sidoo kale golaha deegaanka ee maamulkaasi. golaha wakiilada markaa la dhaariyo ayaa loo gudbi doonaa midda hogaamiyaha dabcan maamulkaasi markaa la qabto iyada oo ay xusub weel tahay in hogaamiyaha cusub ee maamulka galmudugna dabcan uu yahay nin dooro waxa markaa Soomaalida u dhihi jirtay. maasantahay sida aan ka warqabno kolley degmo ayaa doorashada galmudug ka dhacday waxyaabaha xusub mudan oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxa kamid ah kaalkacyo sida ka warqabno laba maamul ayaa ka jiro Midland iyo galmudug marka eegno gaalkacyo inta qofood iska diiwaan gelisay kaara kacdoon qaad waxaan moodaa degmooyinka bariga galgaduud dhammaantood way ka badan yihiin bal 3 jibaar 4 jibaar waa marka arrintaas ay ku dhacday gaalkacyada laba maamul ka taliyaan degmo yar ay tahay haddana bariga galgaduud degmada ay leer galacad ilaa iyo xaran dheer aan eegno iyo inta qofood iska diiwaan gelisay gaalkacyo waxaan moodaa inay aad iyo aad ugu badan yihiin gaalkacyo aan ka warqabno inay qayb ka mid ah ay tahay oo gaalkacyo dhamma aan ahayn dadka degan inay iska diiwaan geliyeen arrintaas ay ku dhacday Zakariya dadka Soomaaliyeed way leeyihiin sida la jira arrinta dabcan waa arrin bulshada dabcan aad markaa ugu jahwareersan hadalhayn badan markaa dhalisay kadib markii guddiga doorashooyinka miiska dabcan ay soo saareen waxaad arkaysaa gaalkacyo oo dabcan labada maamul marka u kala xiran oo qaybna Puntland marka ay xukunto qaybna galmudug ay xukunto in markaa iska diiwaan gelisay tiro dabcan aan la qiyaasi karin. xitaa haddii la yiraahdo dadka degan magaalada gaalkacyo oo dhan way diiwaan geliyeen oo doorashada ay qayb ka yihiin xitaa waxay leeyihiin dadka siyaasadda falanqeeya dabcan suurtagal maaha in 65,000 dadkuli markaa deegaanka markaa iska diiwaan geliyeen oo ama ay ku yeelihiinba. أنا أظن ذكري أنا ما سنتاي waxaan aan ku noqon doorashada koonfur galbeed sidoo kale doorasho ka dhacday waxaa la doortay hogaamiyihii koonfur galbeed laakiin weli waxaa degmooyinka gobolka koonfur galbeed ilaa hadda aan la dooran gudoomiyaashii degmooyinkii councilkii oo dhisayeen golo deegaan waa loo sameeyey sidoo kale gobolka banaadir oo arrintu way rahman tahay bal maanta galmudug maxaa iyadana sidee idooyinkii koonfur galbeed ee gobolka banaadir camal inay marayaan degmooyinkooda hogaamiyaha la dooranay kadib iyaga loo guuraa bal maxay arrinta qayban guddiga doorashooyinka aasaaskii guriga in la dhiso la rabo waxay mar walba qof marka arrintan maxaa loo sabaynayaa in mar walba la dhiso hogaamiyaha maamul meelihii hoose sida gobolkii degmooyinkii bal marka doorasho la qabanayo waa la isku shubtay weliba deegaanadii degmooyinka waa la qabtay laakiin ilaa hadda degmooyinka gobolka banaadir iyo koonfur galbeed oo doorasho hore ugu dhacay ilaa hadda gudoomiyada degmooyinka konsulka ma dooran bal arrintan arrin siyaasadeed way xayran tahay mise wax kale ayaa jira dowladda ku meel gaarka iyo guddiga doorashooyinka dowladda federaal iyo guddiga doorashooyinka iyo maadooyinka hogaanka sare waxaa guri aasaaska laga dhisaa laakiin waxaa moodaa in guddiga doorashooyinka ku ay ka dhisayaan guriga shaqa lasoo saaraayo dib hoos lasoo imaana marka say u jiraan waxaa weeye dabcan dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ama siyaasiyiintu dabcan waxay leeyihiin arrintan waxaa loo ogol leeyahay waxay tahay in maamulkii guud ee kore in maxaa la yidhaha dhiso iyadoo markaa aad moodo in la iloobay maamuladii hoose dabcan gobolka banaadir golihii deegaanka ayaa la dhisay
oo maxaa la yidhahdaa sheeg doorasho galay shacab ayaa isku soo baxay waa loo codeeyey waxaad moodaa in iminka laga tala baxay ama la iloobay sababta waxaan saas u leeyahay waxay tahay 8 bilood muddo ka badan ayay maxaa la yidhahdaa golihii deegaanka gobolka banaadir markaa dhisan yihiin weli ma jirto maxaa la yidhahdaa xafiis ay ku shaqeeyaan hool ay qabteen ma jirto xitaa gollo mushaar iska dhaafe gollo xitaa uma soo dhacdo dabcan waxay ka dhigan tahay in xubnihii ku soo baxay golaha deegaanka gobolka banaadir oo kale iyagu ay dabcan kaliya magacoon oo raacay balse shaqo aysan qaban waxaa intaas ku dar in shaqooyinkii xitaa iyagu inay qabtaan la rabay oo sida maxaa la yidhahdaa doorashooyinkii gudoomiyaasha degmooyinka in maxaa la yidhahdaa duqa magaalada muqdisho iminka uu hayo oo aad moodo in maxaa la yidhahdaa uu asiga qabanayo sababtoo ah waxaa saas u leedahay waxay tahay dhowaan markii la dhisay golihii deegaanka kadib waxaa dhacday in maxaa la yidhahdaa gudoomiyaha gobolka banaadir magacaabay dabcan uu magacaabay gudoomiyaha degmooyin ilaa iyo 4 inay gaaraya la jeclaha waa maasanta fikriye gobolka banaadir intaa uga baxan koonfur galbeed bal maxaa haysto koonfur galbeed sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen waxay u dhiseen hogaamiye waxaa loo doortay shaqo aadan madow oo hogaamiyaha koonfur galbeed laakiin ilaa hadda degmooyinka baydhabo degmooyinka koonfur galbeed dhanka kooban yihiin golaha deegaanka waa dhisan yihiin xisbiyada way kala heleen laakiin ilaa hadda lama dhaarani oo looma qaban bal iska daayay xitaa magacyadooda miisaska xisbiyada kasoo xarumaha degmooyinka mayna tegin marka guddiga doorashooyinka maxay u sababayaan dhaqaale darro maa jirto oo arrimaha lagu howlgeliya mise siyaasad kale oo dowladda ay damacsan tahay oo dowladda gadaal ka riixaysaa jirto oo laga taagan inay shaqeeyaan madaxweynaha mar walba wuxuu ku celiya hadal ah guri hoosoo ka dhismaa xaafad ilaa mintuulo in la doorto oo dhahan mar walba haddana koroo laga wadaa aasaas madaxweyne ilaa mar walba guriga hoosoo ka bilaaba dhismihiisa laakiin waxaad moodaa guddiga doorashooyinka hadalkii madaxweynuhu inay hareer mareen madaxweynuhu waxay mar walba u leeyahay guriga aasaaska min xaafad min tuulo min council saasaa u dhiseena waxaa dowladaha saasaa u dhiseena bal waxaad moodaa in hadda maanta kor la aaday marka hadalka madaxweynaha oo mar walba ummadda soomaaliyeed u sheegay guddiga doorashooyinka qaabka u wadaan waxaad moodaa inay aad u kala duwan yihiin marka maxay arrintan dadka soomaaliyeed inta badan soomaaliyeed ka dhahan geedkii orada lagu soo dirtaa waxaad moodaa laakiin arrimaha kale marka dhinaca u eegno siyaasiyiinta waxay dhahayaan madaxweynaha wuxuu ku ordayay guddiga doorashooyinka in tii federaalka la yimaado iyadoo hogaamiyaashii gobollada ayna dhisanayn haddii inta ku mashquulaan oo degmooyinka iyo waqtigay rabaan in la geliyo waxaa la leeyahay dhaheen boogsiiska dalagaasi hadda galmudug way dhammaatay waxaan rajeynaynaa insha allah hirshabeelle iyo maamulo kalaa ku xigo marka waxaad moodaa in dowladda awoodda ugu badan ee guddiga doorashooyinka ay gelinayaan qeybaha sare qeybihii hoose ee mujtamacii ka dhismaayo dowladnimadii aasaaskani la iloobay gobolka banaadir saa u sheegto gobolka banaadir waxaa lagu balsan golaha caasimadda ama qabta doorashadeeda ilaa hadda cid sheegaysa male waqti lama cayin guddiga doorashooyinka waxaa moodaa inay ka gaabsadeen arrinta keliya waxaan karnaa doorashada axmed waa kala qaadaynaa arrinta gobolka banaadir iyo sidoo kale tan koonfur galbeed oo kale haddii aan eegno tan gobolka banaadir way ka culustahay dabcan sababtoo ah tan koonfur galbeed waxay ka dhigan tahay dabcan in maamulkii dabcan caqabado kale oo marka aad waaweyn in marka ay haystaan sida in maaragtay isha weli mararka qaar aan aragno in dagaalo ay dhacaan oo hore iyo sidoo kale ciidamo isagoo markaa ka amar qaata in markaa mararka qaar magaalada beedhabo dagaalo ay ku soo qaadaan dib u heshiisiintii dabcan doorashadan waxaa laleeyahay waxay ahayd mid markaa magacaaban oo dowladdu markaa ay geysatay bal eeg hadda galmudug sidaa ka warqabno inta badan kaambeynka waxaa sameynaya diiwaan shubak ama maxay leedahay lead power waxaad moodaa hadda koonfur galmudug doorashadeeda madaxweynaha soo socdo waxaad moodaa liibaan inuu yahay xisbiyada kale sida natiijada dabcan soo bixi karta mid lasii ogyahay waxyaala kale waa laga kale ilaa hadda ma aanan aragno madaxweyne xisbiyada ka socdo sida liibaan camal kaambeyn u samaynayo ma arkin social media kuma arkin haddii xisbiyada si gooni u hayaan gooni waay laakiin liibaan xisbiga madaxweynaha xisbiga xaakimka sida u geeyeen liibaan oo meelaha degmooyinka dhan oo madaxweyne himkiisa laakiin xisbiyada kale ka tartamay ilaa hadda maana arkin in hadda laisleeyahay liibaan kursiga uu ku adeeri karaa galmudug maxaa la rabaa ma laha xitaa xisbi oo soo bandhigin maraxooda ma jiro
xisbiyadana waxay mooddaa inay arrintaa laakiin dad koonfur galbeed way jireen dad shaqay isbees lahaay kudlada lahaay muujinaya dareenkooda sidaa zikriya adaa ku jiray shariif xasan oo kaleeta maarata koonfur galbeed dadka marka maarata ishaga lislahaa aadamadow waa cayrin karaa maarata u taagnaa inkastoo shariif xasan lagu xalto in maxaa la yidhahdaa dowladda federaalku dabcan madaxiis ahaan halkaasi u geysay waxaa kaloo dadka cadcadaa oo maxaa la yidhahdaa isheeg muuqday musharaxiinta ah ka mid ahaa wuu dhow dhalay allahu naxariistay professor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo asna maxaa la yidhahdaa loolab ku jiray inkastoo dadku dabcan laragarab waaye wax walba dabcan waa lasii saawaarin karaa hadda dadka dhan looda siyaasiyiin waa soomaaliya markaa joogto migrafta waa mahadsan tahay doorashada galmudug waxay horta waa dhanka kala hadii loo eego maanta dhan hal dhanaan ka eegeen dhanka kale marka loo eego waxay horumar weyn ah in dadku wax doortaan iyagana la doorto wax arrin weyn waaye waxay xigta galmudug waxay deegaano aad u dhib badan oo dagaalo inta badan beelo qabiile isku dagaalaan dad hiirmiyiga oo aad u dhib badan waxay dhahaan soomaalida haddii galmudug ay heshiiso soomaalida ma heshiiye ileen waxay soomaalida meesha ugu dhibka badan bal maanta deeba doorasho aadeen oo waxaan dagaal oona ka dhicin si nabad loo doortay degmooyin tiro badan tuulooyin madiirsan haddii qabalo codeey dhanka haddaa ka eegno waa arrin aad u weyn oo taariikhi ah bal qaladaad badan ha lahaato laakiin waxay waaye tub wanaagsan oo la qaaday waxyaabaha dambe imaanayaan waxay ku qasban in wadada la furo la maro sidoo kale doorashada way ka dhacday golaha deegaanka qabsada ka dhacday maxaa la shamaalinka somaliland oo goonigosadka uu sameeyey laakiin maanta waxay waa iskoorka dibiyey koonfurta soomaaliya marka in galmudug marka lagu tijaabiyo maxaa la doorashada iyadoo horey markaa lagu soo qabtay koonfur galbeed maxamed arrinta xusada badan oo dabcan doorashadii dhawaan ka dhacday galmudug oo golihii wakiilada iyo sidoo kale golihii deegaanka markaa lagu soo dooranayay aniga aan leeyahay xisbiga hadda sheekh shaakir oo kaleeto doorashadii gobolka banaadir uu ka qayb galay doorashada koonfur galbeed uu ka qayb galay arrintana dabcan mid jirtay ahayd oo maxaa la wax qarsan ma ahayn haddana dalka galmudug la tegey golaha waxaa isleeyahay sheekh shaakir galmudug wuxuu isleeyahay adigu isku muujiyo maaragtay isheeg zikriya horta waa mahadsan tahay sida caadiga ah oo la ogyahay aqlabiyada dadka taageersan xisbiga tawfiiq oo sheekh shaakir hogaamiyo inta badan waa dhul samareed gobolada dhexe saameyn xoogan waa ku leeyihiin marka xaqiiqa loo eego hadda ma saadaalin karno laakiin waxaa sida caadiga oo normalka oo aan sii qiyaasi karnaa xisbiga labaad inuu noqon karo xisbiga tawfiiq marka la yidhaha doorashada oo galmudug ka dhacday haddii xisbiga koowaad oonan noqono waa xisbiga labaad dood kama taagno sababtoo taageerayaal tiro badan oo xisbiga taageersan ayaa ku nool deegaanadaas waxaa guul ah oo dabcan dadka soomaaliyeed hadda ay ku baraarugeen in xitaa dad badan oo maxaa la shalay kaarka aan doonan oo maxaa la yidhahdaa islahaa codkiina waxba kuma goysan kartay ama maaragtay ma shaqeynayo in maanta ay ku baraarugsan yihiin maxaa la yidhahdaa sheeg digita haddii kaarka dib loo furo ay doonahayaan oo ogyihiin marka haddii kaarka soo qaataan codkooda ay kusoo saari karaan qof alaala qofka ayaga ay rabaan magana dadku way baraarugeen maanta in kaarka ay qaataan ama shalay haddii ka cadiseen maanta waxaa laga yaabaa in safka ay kaga hormaraan maanta kaarka ay doontaan sidoo kale waa waxbarasho waa la barto dadka waxay ka ordeen in qof loo magacaabo ama nin oday ah ama qabiil oo iska keensado qof iyaga ay rabaan tusaalaha waxyaalaha keliya xusada mudan waxaa ka mid ah dadkii diyaas bara ahaa oo wadankii dibadiis jira ii jira ani lacagaa wataa anaa la doorana anaa qabiilka anaa ugu sareeyo oday anaa lacag siinaayo odayaasha anaa siinaayo maanta waxaas way dhammaadeen bal waa maanta inta badan dadka haddii rabta si musuqaa loo keeno inta badan dadka koonfur galbeed kasoo baxa iyo hirsha hadda galmudug asuuna gobolka jira dhammaantood inta u badan dad loo kala waa dhalinyaro soomaaliyeed balmaha dad gudaha ka yimid waa dhalinyaro wadanka ku dhashay fahansan marka waxaa waa wax guul marka dhinac loo eego arrin guul ah dadkii ku fahmi jiray ani baasboora wataa baasboor ajnabiga wataa maanta waxaa moodaa in doorka uu dhammaaday waana farxad guddiga doorashooyinka waxaa waxyaabaha keliya qaladaadkan way dhammaanayaan insha allah waa bilaawa markii ugu horeysay konton dhowr sano kadib in annaga codeyno codna waxaan ku dooran annagana codeyn karno waa bilaaw fiican oo wanaagsan qaladaadkan waxaa moodaa in laga gudba marba marka ka dambeysa laga gudba waa laga gudbi doonaa in hogaamiye la yaqaano la doorto nin dooran doorta waa laga gudbi doonaa laakiin waxay ku xiranta soomaalida inay fahmaan xisbiyadu ay fahmaan hogaamiyaasha siyaasadeed ay fahmaan
waxaan waxay hore isku dhiib waay tartankan way furayaan tartanka sida beelaha lagu tartami jiray oo sida caadiga marka la yiraahdo qabiil horta dadkana waxay moodaan inay doorashada diyaar u yihiin marka hogaamiyaasha mucaaradka iyo kuwa kale muxaafadka xisbiyada inay noqon xisbiya oo aan ahayn maxmulayaal ayna noqonin oo doorkooda sida saxda u qaataan ee la tartama xisbiga shimbirta bal aqlabiyada iyo dhaqaalaha wadanka haysto wax walba haysto laakiin waxay moodaan waa lala tartami karaa go-aankaas waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed gacantooda ayay ku jiraan laakiin kidi waxay kaliya samaan karaan xisbiga tartan seen kara mid unbaa guulaysan lahaa laakiin hadda anaga dhahno hoteelo ku xirayna tartamayna ana lahay dib haloo laabto dagaal oo dhaqameed weyn haloo laabto maxamed doorkaas inuu xiran yahay maxamed daawad intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkii dabcan ku faaqideyno arrimaha doorashooyinka gaar ahaan doorashadii dhawaan ka dhacday maamulka galmudug markaa lagu dooranayay golaha wakiilada maamulkaasi iyo sidoo kale golaha deegaanka intuu muuqaal ka leeyahay ku kulmi doono waa bahda soomaalida maanta oo isku dooranayda leh sidaa iyo ammaano allaha